Bismillahir Rahmanir Rahim. Ardayda dhigata dugsiga jiilal jadiida namuudajiya wiilaliyo gabdho waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ardayahay waxaynu ku soo dhex jiray geeraarkii ciwaankiisu ahaa ka nasiib ka nasaar. meerisidii uu ka koobnaa geeraarkaasi waynu soo dhamaynay. waxa aynu dhigan doonaa ereyada cusub ama erey furka geeraarka ama wax loo yaqaan kelimad macnaha iyo layliskii casharkaas inoo dhamaaday ayaynu dhigan doonaa. ereyada cusub waa ereyada adag ee macnahooda aan la fahmi kareynin ee geeraarka ku jira. way ereyga ugu horeeya nusqaan macnihiisu waxa weeyaan yaraan. ereyga labaad sabi macnihiisu waa caruur. ereyga labaad siigo macnihiisu waa dabayl. ereyga xiga aasid macnihiisu waa qarin. ereyga xiga sabo macnihiisu waa duleed. way sabo ama duleed waa laba erey oo inta badan magaalada laga isticmaalin oo ay isticmaalaan dadka baadiyaha ku nool. sabo ama duleed waxa la yiraahdaa reer guuraagu marka uu meel tago guriga inta agagaarkiisa ayaa la yiraahdaa sabo, duleed iyo kambal. saddexda erey waa isku macno. waa guriga hareerihiisa guriga hareerihiisa ee maqaldaaqa ayaa la yiraahdaa duleed ama sabo ama kambal. way ereyga xiga soofka macnihiisu waa foofka. waxa weeyaan xoolaha. foofka ama soofka waa laba erey oo isku macno ah. waxa weeyaan xoolaha marka xirada laga sii daayo subaxii ee lagu sii wado kaymihii ay daaqi jireen ayaa la yiraahdaa waa la foofiyay ama waa la soofiyay. sariigasho macnihiisu waxa weeyaan xishood. surmaseegto macnihiisu waxa weeyaan la waayid. waliba ereygan surmaseegto waxa loo adeegsadaa marka geedka gudinta lagu garaacayo ee halkii aad islahayd geedka ka jar aad gudinta afkeedii la weydo ayaa la yiraahdaa surmaseegto. way shaqi macnihiisu waa qofka xun. waa erey af carabi ah macnihiisu waa qofka xun ee guul daraystay ayaa la yiraahdaa shaqi. ereyga xiga saciid marna waa magac waana erey ka soo jeeda isaguna luqadda carabiga. saciid marna waa magac marna waxa weeyaan waa erey orax ahaan loo adeegsado erey kelmad ahaan loo adeegsado. marka saciid macnihiisu waxa weeyaan waa qofkii wanaagsanaa amba kii guuleysanayay. af Soomaali magaca saciid waa magac carbeed ama waa luqal carabiya asal ahaan weeyaan ereygan. af Soomaali magac kale isku macno noqonayaan. magaca la yiraahdo liibaan haddaad maqasho qof la yiraahdo liibaan iyo haddaad maqasho qof la yiraahdo saciid ama saciid labada qof magacyadoodu waa isku macno. labaduba waxa weeyaan waa kii liibaanayay amba kii guuleysanayay. way sagal waa daruur. sagal waa daruur laakiin daruur oo dhan sagal lama yiraahdo mid gaar ah sagal la yiraahdo. waxa weeyaan cadceedu markay soo baxayso ama markay sii dhacayso daruurta cirka ku taala ee ay cadceedu cilaanka ku samaysay amaba ay fallaadheedu caseeyeen. cadceedu markay sii dhacaysay markay soo baxayso waa casaan. marka daruurta haddii ay daruur marka cirku leeyahay daruurtaasi waxay noqotaa casaan oo waxa midabkeedii bedela cadceedan casaatay ee sii dhacaysa amaba soo baxaysa. daruurtaas ay cadceedu cilaantay ayaa la yiraahdaa sagal. way darooray macnihiisu waa da'aysa. ereyga xiga darooray macnaha waxa weeyaan da'aysa. asal ahaan maxaa loo isticmaalaa marka uu roobku kugu soo doo ee halkaad jirsanaysay tusaale ahaan xagga sare tusaale ahaan guri baad dugsanaysaa jiinkadoo kale ah amaba aqal Soomaali baad dugsanaysaa. marka jiinkadii amba aqal Soomaaliga xagga sare meel ka daloola halkaas biyihii
iyagoo mirtifiqla ayay ka soo dhacayaan daloolka yar biyaha ka soo dhacaya marka uu roobku daayo meesha jirsanaysa haddii xagga sare ka daloosho biyaha yar mirtifiqlaha ee ka soo dhacaya ayaa la yiraahdaa daroorin marka darooray macnihiisu waa da'aysa weeyaan saatir waa magacyada Ilaahay mid kamid ah istiqlaal macnihiisu waa madax banaani waana erey asal ahaan af Carabi ah way sado macnihiisu waxa weeyaan nimco kelmadan waa sado kelmad af Soomaaliya hablaha waa loo bixiyaa erey ahaan waa loo adeegsadaa sidii Saciid oo kale amba Liibaan oo kale ayaa erey ahaan loo adeegsadaa asal ahaan waa magac macnihiisu waxa weeyaan waa nimco amba barwaaqo asal ereygu halku ka soo jeedo waxa weeyaan xoolaha ninka boqorka la siiyo ee bulshada uu xukuma ay siiso ayaa asal loo oran jiray sado nimanka laakiin nimco ayuu jeedaa way sayruukh gantaal waana kelmad af Carabi ah gantaal soor cunto safrad gaajo waayahay haddaynu kalimaad macna inta kaga gudubno layliska su'aasha koowaad waxaa oranaysaa kaana siib kana saar geeraarkan kuma tiriyay su'aasha labaad waa kuwee labada calan ee abwaanku leeyahay kaana siib kana saar waayahay su'aasha saddexaad waa ayo saaxirka uu gabayaagu sheegayaa su'aasha afraad geeraarka ka soo saar tuducyada uu hal abuurku dambi dhaaf ku weydiisanayo Ilaahay way su'aasha shanaad sabo ereygan maxaa la macno ah way halka ay nagu joogto ardayahay casharkeenani kana soo shaqeeya layliskaas. Assalaamu calaykum.